taliska nabad sugidda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta ka warbixiyay howlgallo baaritaan ah oo ay maanta ka sameeyeen kontaroolada laga soo galo magaalada iyo gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana baaritaanadani lagu baarayay dadka iyo gaadiidka soo gala magaalada Jowhar si loo xaqiijiyo amniga caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle taliyaha nabad sugidda gobolka Shabeellaha Dhexe Gaashaanle Cabduqaadir Cabdullaahi Xaayo ayaa bahda warbaahinta uga warbixiyay howlgalka nabad sugiddu ay maanta Jowhar ka sameysay howlgaladana saaka mar walba howlgalada waa sameeyna laakiin howlgaladan waxay kamid yihiin waxyaabaha howlgalada daba joog xaq lagu ilaalinayo ammaanka guud ahaan gobolkan ama maamul goboleedkan haddana si gaar ah waxay u soo khuseeyeen howlaha shirka lagama ilaalin karo goobta uu ka dhacayo kaliya waa in laga ilaaliyaa ka banaanka dadka iyo bulshada meelaha ay joogaan ama magaalooyinka laga soo galo jaboontiyada ama ha noqoto bulshada is socodkooda in la socdo lana xaqiijiyo howlaha amni taas ay hayeen ujeedada howlgallada saakaan sameyn sidoo kale Gaashaanle Cabduqaadir Xaayo ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen sugidda amniga goobaha ay ka socoto doorashooyinka guud ahaan ciidamada ammaanku waxay ku ammaanay yihiin shirkan waxayna ku guuleysteen hawsha inay wada qabtaan si guud ah sababtoo ah far kaligeed foorma noqdo laakiin doorka ay ku leedahay ciidanka nisa ama ciidanka nabad sugiddu waxay ku leeyihiin xaqiijinta xarumaha shirku ka dhacay ammaankooda iyo xarumaha ay degan tahay martidu iyo wufuuddu xaqiijinta iyo soo dejinta wufuudda imaanaysay heer federaal iyo heer maamul goboleedba hadday ahaa lahayd midda ku imaado dhulka oo dhulka soo marto iyo hadday ahaa lahayd midda diyaarad kusoo degta oo iyadana laga keenay intaas ayay doorkooda khaaska ah iyo inay maamulaan amniga xarumaha shirka oo ka dhaci lahay intaas ayay doorkeen waa ka sameeyay sida ogtahay wariyaashu mar walba nala joogaan martina kama tihiin waxaad ogtahay inaan u baxnay meelaha fogfog ee kamid tahay biyacado buurtuubo inaan tagnay mahaday meel oo hadda Jowhar iyo xarunta shirka inaan ku arkeen laga yaabo inaad adiga raacday marka kuma ekin magaalada Jowhar oo kaliya howlgalku waa dheer yahay laakiin shirka wuxuu ka dhacaa magaalada Jowhar Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jowhar